dood cilmiyeed ku saabsan ka hortagista fikradaha khaldan ee lagu waxyeeleynayo diinteena islaamka oo muddo 2 maalmood ka socotay masjidka weyn ee Saalixiyada ee magaalada Burco ayaa la isla qaatay in loo midoobo ilaalinta caqiidada iyo manhajka ahlus sunna wal jamaa oo la tilmaamay inay si khaldan u adeegsadeen magacaasi ahlus sunna dowladda Iran iyo kooxaha maalgeliso intii uu socday kulan diimeedkaasi waxa si weyn loogu lafaguray sida ugu haboon ee loo sixi karo caqiidada bulshada Soomaalida Islaamka iyadoo la waafajinayo ahkaamta shariicada Islaamka waxaana ka hadlay kulanka culimaaddin dhalinyaro madax dhaqameed iyo guud ahaan qaybaha bulshada gudoomiyaha jaamacadda Al-Najah Dr. Faisal Mohamed Ali iyo gudoomiyaha hay'adda samafalka ee Geeska Afrika Mohamed Ali Geedi ayaa sharaxay ujeedada kulan diimeedkaasi tilmaamayna hanaanka loo marayo sixitaanka caqiidada ahlus sunna wal jamaa kulan cilmiyeedkii halkan ka socday 2 cisho kulan cilmiyeedkaas ay fulineysay jaamacadda Al-Najah isla markaana kormeerka iyo waxa weeye maalgelintaba ay lahayd hay'adda khayriga al-qarni al-afriqi baaxithiintii iyo cilmi baarayaashii mashaayikhda iyo dakaatiradii soo bandhigay cilmi aad iyo aad u qiimo badan halkanna 2 cisho gelin hore iyo gelin dambaba lagu lafagurayay oo waxa weeye la isweydaarsanayay aqoon waan mahadcelinayaa waxaan iyagana u mahadcelinayaa inamada miidiyaha waxa weeye u gudbinaya ummadda khayrka iyo wanaagga halkan ka dhacay waxaan walaalayaal tilmaamayaa jaamacadda Al-Najah oo loo aasaasay ummadda oo aqoonta islaamiga ah waxa weeye laga qabtiro akhtaada iyo khaladada diimeed ee dadka qaarkood ay ku dhacaanna in la toosiyo dadkana aqoon ay u yeeshaan shariicada ujeedada loo qabtay mawduucana ahlus sunna wal jamaa in dadka loo sheego caqiidadiisa inka dhalinyarada waa caadifad buu hayaa laakiin xikmad lagu daro ilaahay subhanahu wa ta'ala yiri wad'u ila sabiili rabbika bil hikmati mar walba هذا شيء يسبح له بعين أتراعه جدك النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب نتائجي يمليه كصوب حي كلا علميات كان لغم قعدري أهل السنة والجماعة عقيدة ومنهجا أهل السنة فرقة أردن بيد حدويهين عقيدة يا عملك يا أحكامتها يجانا أبو خير بدن وغنا توصل وغنا عدالة بدن إن لجدجو مذاهبتا يا فرقة الإنسان اللي أحسن أكل إحدى منهجك توصنا إن لجدجو فرقة شيعة جارهان 12 يدا عالم كدونس إن كفا في سوح المذهب كذا هدام كأه الدولة إيران يهرك عيسو ما أنت ملتقاهني أهل السنة والجماعة عقيدة ومنهجا إن بدنا وحارة تلالك حولها يكيدك يحول قاضية كان هو تلالك دينت تيجي قلنا يتشيعين يمكن كستوخ كتيرون سيدي وسوشيال ميديا يسوي صح ميديا يسوي وكيمانيا بعديات منيا وهالعناية مواضيع يا ملتقياش نوعا وكراءة باهئات يا آد وين بالوقبة ملتقاهن يعد كستوخ قيم قاضتي هذه آد من مبادئنا بها سياسته ومشايخه كعرته رجع حفاظة يو تذك أهل كرم كعران علمانيين بأيمان يسوها بدل كذا هكذا وحكرا دعية علي داير محمد بوس تي في يونيفرسال برعو